Well, Congo is a very complex country. There are many factors of concern. The eastern part of Congo, as you know. hagaag Congo waa wadan ay xaaladiisu adag tahay waxaana ka jira waxyaabo badan oo ku walwalgelinaya qaybta bari ee Congo sida aan la socono wali waxa ka jira kooxo badan oo hubeysan waxa taasi barbar socdo cudurka Ebola hadda wax aan tixgelinayno oo aan muhiimada saarayno ayaa ah wixii ka dambeeyay doorashada dawladda cusub waa inay abuurtaa xaalad ah wada hadallo loo dhan yahay oo ay ka qayb galaan dhammaan dhinacyada sidoo kale waa inaan xaqiijinaa in awoodda si nabad ah loogu kala wareego si dalka uu horay ugu socdo taas oo aan taageeri doono dalkan waa dal aad barwaaqo u ah hase yeeshee nasiib darro waxaa la degay colaado joogto ah The DRC is potentially a very rich country, but unfortunately kowdii bishii Janaayo dawladda Soomaaliya ayaa u sheegtay ergeyga gaarka ahaa ee qaramada midoobay Mr. Hayson inuu isaga baxo dalka weli ma aadan soo magacaabin wakiil cusub ma jiraan waxaad ka dhahayso ergeygan cusub haddii aadan hayninna maxay tahay sababta dib u dhaca soo magacaabista maxaad ku qeexi kartaa xiriirka ka dhexeeya qaramada midoobay iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya iyadoo maanka aan ku hayno arrintan I've just sent the Secretary General of Political Affairs. She was a few days in Mogadishu. There was a very constructive dialogue. dhawaan ayaan u diray wakiilkayga arrimaha siyaasadda maalmo kooban ayay Muqdisho joogtay waxaa dhacay wada hadallo dhaxalgal ah oo dhex maray dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo qaramada midoobay dhawaan ayaana soo magacaabi doonaa ergeygayga cusub waxaan rajaynayaa in uu jiri doono bilow cusub oo xiriirkeena ah taasina waa wax aad muhiim u ah waxa aan doonayno ayaa ah in aan helno Soomaaliya oo ka taqallustay dhibaatooyinka iyo xaaladaha adag ee ay la tacaalayso waxa jira horumar badan oo ay Soomaaliya ku tallaabsatay oo aan ka magacaabi karo dib u habeynta dhaqaalaha xaaladaha dhinaca dhaqaalaha si dhab ah ayaa horumar loogaga sameeyay waxaanu rajaynaynaa in tani ay ogolaan doonto in la xalliyo mushkiladaha dhinaca deynta banka adduunka iyo hay'adda lacagta adduunka labaduba waxaan ku dhiirigelinay in arrimahaasi ay ka shaqeeyaan waxaan kale oo aan doonaynaa in aan taageerno howlgalka midowga Afrika si aan uga hortagno dhibaatada al-shabaab sidoo kale si buuxda ayaan u taageersannahay dadaalada dib u qaabeynta ee ay wado dawladda taas oo muhiim u ah hor u socodka wadanka ee jihada saxda ah the government for the reforms that are necessary for the country to move forward in a positive way ma jiraan colaado amaba xasaradaad isleedahay sanadkan si guul leh ayaa looga xallin karaa qaaradda Afrika We are very committed to a surge in diplomacy for peace that is very much linked again with the African Union's initiative to silence aad bay nooga go'an tahay in aan hab diblomaasiyadeed ku raadino nabadda taas oo xiriir toos ah la leh istaraatiijiyadda midowga Afrika ee ah in la aamusiyo hubka sanadka 2020 Libiya oo kale waxaanu rajo ka qabnaa suurtagalnimada shirweyne qaran oo ay Liibiyaanku xal siyaasadeed ugu raadiyaan dhibaatada hadda taagan dalka South Sudan waxaanu haysanaa heshiis nabadeed ay wada saxiixdeen Riek Machar iyo Salva Kiir waxaa jira heshiis hadda uun la unkay oo ay kala saxiixdeen dawladda Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe iyo dhowr kooxood oo hubeysan waxaa ka wada shaqeeyay mar kale midowga Afrika iyo qaramada midoobay waxay ila tahay in tallaabo muhiim ah loo qaado yareynta khatarta colaadaha iyo in la helo dariiqooyin lagu xalliyo xasaradaha in wali loo baahan yahay oo aanay fari ka qodnayn laakiin waxa Afrika ka jiro rajo weyn waxay ila tahay tusaalaha ugu wanaagsan in ay tahay dib u heshiisiintii Ethiopia iyo Eritrea taasoo ah mid ka timid dhinaca Ethiopia gaar ahaan ra'iisul wasaaraha cusub waxaan kaloon aragnaa wada hadallada u dhaxeeya Djibouti iyo Eritrea iyo sidoo kale dib u heshiisiinta Eritrea iyo Soomaaliya taasoo mar horeba dhacday waxaa naga go'an in aan la shaqeyno midowga Afrika iyo urur goboleedyada qaaradda si loogu guuleysto in sanadka 2020 la soo afjaro colaadaha ragaadiyay qaaradda Afrika The African continent is able to achieve its goal to end conflicts by 2020